واسبدله درجان كلا بكون داسين جرنا لبدي كون وانا لقى ديده كبسرتي جدًا جرنا كون وانا لقى ديده علانتي يبسين جرنا وانا لقى ديده المين نعاو جدًا جرنا وانا لقى ديده مركه maxaan ka caawinaynaa intaas lacagta aad bay ii saamaysay buri baji wax yar oo macabilaan gadanay ilmaha yar yarkaasaan wax ka gadanayay ilmihiina kunbay wataan shalay iyo maanta iyo isbuucan gudihiisa wax iga gatay waan waayay wixii aan sameeyay baji burki kunkay wataan waa la igu diiday waxa lama qaadanayo waan ururiyay lacag 500 ba hadda guriga ii taala waan qaaday magaaladan geey wax iga gatay waa la igu soo celiyay maantadan hadda waxaan kun shilin wax ku gatay mal gurigeyna 400 lacag baa taala dukaamankan tagay lacagtii lagu soo celiyay deyn baan soo qaatay marka ilaahay isiyaan ku siinaya baa $1 kuwaasan wax ka gataa buri baji sambuus baan gadaa wiilna ima beelo gabarna ima beesho shakhsi waayelo kaligiis meel fadhiyana waa wax hadda kale aan danaysana habadaas bajiyaan beelinaya badii bajiina kunkii shilin iyo kaashkii waan lagu diiday dhibaatadana haysa oo maantayto ugu daran oo maankayga iyo maskaxdayadaba ka guuxaysa shacabka reer Salaamo iyo shacabka reer Mudug iyo shacabka reer Gaalkacyood waa lacagtii shilin Soomaaliga ahayd oo bataatan bal diiday lacagtaas waxay noo geysatay dhibaato aad u faraweyn waxay nagu keentay saameyn biyo ma gadan karno dadkii hilib ma gadan karno caano ma gadan karno biyo ma gadan karno markii magaalada aan u shaqo tagno waxaan soo shaqaysan jirnay lacagta shilin Soomaali baan la ku siin jiray qofkii 80 kun soo qaata maanta ku shilin cidna ka siisan mayso dadkiina waa baaba afar bari bay xiran yihiin suuqyadu wax la gadayaa ma jiraan dukaamadii waa xiran yihiin magaaladii Gaalkacyo mudaharaad baa ka dhacay magacaygu waa Cabdi Cali Bashiir oo degan IDB-ga Salaamatu waqooyiga Gaalkacyo waxaanu ka cabanaynaa lacagta shilin Soomaaliga ahayd oo nala ku diiday oo aan waxba ku gada karin annagu haddaan nahay IDB boqolkiiba 90 waxaan isticmaalnaa shilin Soomaaliga muddo ku dhow 3 maalmood ilaa 4 maalmood biyihii aan qutul daruuriga aan u hayno aan cabbi jiray waana la ka gadi waayay $1 baana la ku yiri $1 annaguna ma haysano dawladda waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa wax ka qabato ay dadka gadaal u fiiriso ay shilin Soomaaliga canshuurta ku qaado qaar waa xamaalato subaxdii baan laga tagnaayo magaalada u xamaalan tag jirnay dadkii soo xamaalanaya lacag Soomaaliya la soo siinayay Soomaaliga waa lagu diiday dadkii waa baqtiyeen waxaanu ognahay dad aan dabka shidan oo $1 waayay waxa weeye Soomaaliga laga diiday guryahooda lacag Soomaaliya yaala waa laga qaadan waayay anigu dadka hooyo waxaan ahay ilmaheeda u xamaalata lacagtii Soomaaliga ahayd waxbaan u doontay waxbaan ku doontay waa la igu soo diiday waxa weeye dhibaato halkan ka jidha anagu waxaan rabnaa lacagta Soomaaliga baan rabnaa oo wax ku gadanayno oo ilmahayaga wax noogu cabay arday noo joogta ardayda ayagoo afkooda qabtay nagu soo noqoto oo aan biyo aan soo cabin waxa weeye waxa waa dhibaato madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dhibaatada uu noo geystay inuu naga daayo waxa la rabaa Soomaaliga in loo fasaxo dadka dawladda waliba madaxweynaha lacagta inuu fasaxo oo masaakiinta u naxariisto dad waxa jiraan telefoonada haysanin oo xamaalanay guriga xataa dhisa soo xamaashay lacag Soomaaliya soo qaadan jirayo lacag Soomaaliya lidiid hadaad soo qaadato cidnu ka gadan mayso waxba ka gadan mayso marka waxa la rabaa dadku in la isku cadbin oo qofka shacabka loo naxariisto oo dadka tabarta yar loo naxariisto oo dadka wax loo reebo oo dadka madaxda waliba $ka isticmaala qof aan $isticmaalin ma jira la soco yaa dadan $isticmaalin $ka aqoonima hadii la tuso qaar waxaan ku leeyahay adu cashadaada iyo qadada quraacda dadweyl ka bisishay umada soo xamaalinayso quraacdooda iyo xoogooda ee muruqmaalka ee ku xamaalinaya qada iyo quraac ka diyaarsanay hadal waxaan ku leeyahay dadkaas cashadooda iyo quraacdooda iyo qadada ka xirin magaaladu waxay noqotay macnaha magaalo odeen ay soo galin bay noqotay waxay kala noqotay xagga sarafka markii waxa weeyaan anigu aad baan noo saameeyay haddaan nahay Salaamo 2 IDB haddaan nahay aad baan noo saameeyay waxaan ka codsanaynaa madaxweynihii wixii ka hooseeya sarafkaas macnaha haddaan nahay dad IDB ah awood ma lihin ilaahay ba awood leh waxaan rabnaa in macnaha sarafka lacagtaas oo guriga nooga xareysan inaan ku shaqaysano oo noo soo saaro macnaha sarafka lacagta noo fasaxo ayaan ka codsanaynaa mid kale waxa weeyaan lacag la'aan anigu $1 ma haysano $1 ma haysan karnaa anigu $1 awood ma lihin dad waxaan nahay Soomaali lacagta Soomaaliya la diiday $1 awood ma lihin lacag $1 ma sameysano baadma samooga way la yiraahdaa markaan Salaamatu ayaan deganahay meesha meherad yar ayaan ku haystaa wixii lacag aan ka urursaday oo kaashka oo ii yaalan waa lagu diiday saameyn xoog leh ayay nagu haysaa
magaaladan la aaday oo xaafadii waxa lagu gato magaaladiina way ka sii daran tahay oo lacagtii hadda guriga ii dhaxtaala waxaan ku qabtana ma laho intaas oo ciyaalan ugu shaqaysanayay oo magaalada maxaa la jira meheradaas aan ka shaqaysanayay ciyaalku wax ugu siisanayay lacagtiina hadda waa liigu soo diiday oo ii taala waxa ii qabatana ma lahan ilaa iyo lacag dollar tuur maahan wax kale tan lama dhaha dollarkiina kaashkiyo ii yaalo dollarna hadda waxaan ku samaystaa ma garanayna kaashki lacagtaas waxa naga gaadhay burbur iyo gaajo iyo dadkii oo mataqaanaa wareeray dhibaatooyin badan baa naga soo gaaray mataqaanaa waxa weeye xiritaankeedii madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo golayaasha kale xukuumadda waxaan ka codsanaynaa lacagteedii Soomaaliga ahayd oo waddankayaga u dhaatay in nala soo celiyo oo waxa weeye baahidii aan awal ku dadan jirnay aan ku dadano baahidii oo dhan baa soo baxday ayadoo aan wada ka yaabanayn oo corona iyo balaayo magaciisa miirana oo ay jirtay yaa midaasna nagu soo baxday waxa weeye dadka kan waa baaba'aya haddii lacagtaas la waayo runta marka la sheego waxaa la rabaa lacagtaa in si degdega loo kugu soo celiyo waxaa jirta in dadku ay yihiin xamaalato dadku garab xamaalato weeyaan qaar waxaa jira ilmihii baalashlayaasha intay saako dhan kaba soo baalashiyeen oo maanta dhan wax soo waxaynayeen in caawa markii lacagtii Soomaaliga keeneen dukaamadii la yiri qaadan mayno dadkiina aysan haysan wax kale oo ay maanta wax ku gataan dukaamadiina ay dhaheen gadi mayno biyo la waayay cunto la karsada la waayay sidoo kale iskuulka ilmihii 5,000 iyo 4,000 aan siin jirnay laga soo diiday ilmihii ayagoo maanta say saaka ku tageen bay duhurka imaanayaan waxa weeye anagu lacagteeda Soomaaliga baa rabnaa dollar ma haysano hadii madaxweynuhu uu leeyahay dadka hantidaalana ha quutaan shacabka masaakiinta ana ha qadaan deesaas xilka ugu maana dhiiban waxaan dawladda ka codsanaynaa in arintan dib loogu noqdo shacabka masaakiinta ana loo turo waxaan nahay mootobajaajlayaal heer waxa gaarna in lacagta loo maganaysa dawladdu laga bedesho waxaan ka codsanaynaa in lacagtaas dollarka naga bedelo Soomaali loogu bedesho hadda mootooyinkay waa iska xareena anaga waxa noo qabanayso noo tarasana ma jirto waxa jirta dad aan taleefanka si lacagta loo dirsanay aan aqoonin taleefanka si wax loogu shubanay aan garaneen taleefanka si halkan aan soo furneenin ba iska jida marka waxa jira dad yar oo yuutooyin 10 kun arusan jiray markuu ku soo aruuro wax ku iibsis dhigi jiray markuu soo aruurayna maanta markuu baqaarku u geen loo soo diidaa ka jira marka waxaan dooni lahaynay xooshkan waa la diiday la inay suurta gelin oo xooshkeena sidoo noogu socon jiray uu noogu socdayaan doonaynaa intaasaan cabashanaga walaalayaal cabashadeena fadlan waxaan doonaynaa inaad noo fulsaan